maanta walaal xasan sheekh madaxweynimadeed ku wareejinaya caasimadan hargeysa ka dhiga oo ah dhiilka ugu weyn ee muqdisho mar walba soo jeediso somaliland soo jeediso hadduu labadaa soo jeediyo in madaxweyne ciro noqdo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya tusaale ahaan caasimadeedu noqoto hargeysa miyaad aaminsantahay in qaramada somaliland laga laabto taana la qaato haddii lacala la soo jeediyo arrinka anugu kama leexleexdo hadlaaba heshiiya bay soomaalidu tiraahdaa hadday caalamka soo tuubayaan oo halkan inoo keenaan oo caasimadda inoo keenaan ya nimanku xujadii bayna ka haystaan waxayna ka haystaan mulkiyaddii reer etoobiya ay hadda xujad bay haddaan mulkiyadda hadday inoo keenayaan dibba uma arko anugu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمان صاحبة الصوماليات ملك استوى جوكتان يسكستو عدنا داونسان جمعة المبارك مقال كاسر رعاها وحوها بغر عثمان أو محمود بورمدو وبحيي وريس خنتينا أن كو أمانيو سيدا جيسي نمط عليه كو دع عليه وحا قلبي سكوجيلا وشاغي خنتي أنو وان شاء الله ضدك أن منافقين ومركز سؤال توس اللي ويديو ست توس iyo waxa ay aaminsiin uga jawaab qaar baa hadalka ruugruuga qaar baa meelaha firfiriyo jeejista qaar baa gabgabeeya laakiin isagu waxa weeye dacar haday ka qaraar tahay nin sheegi kara waxa uu aaminsan yahay war boqorka ilaahay baa boqorey saariga gaarsiiyay aad baan u taageersanahay horeyna waan u arkay goobo fara badan waxa weeye faagtimo uu ka dhigay iyo waxa weeye taariikho waayahay anigoo marka follow up ku sameynaya kelmadaas boqor Cusmaan oo Maxamuud Buurmadow war haddii nimanku dowladnimadii ay noo keenayaan hargeysa keenayaan oo madaxtinimadiina siinayaan oo caasimadiina siinayaan maxaa kale oo diidanin awal maxaa kale oo sarribnay waayahay odagaas waxa weeye fikradiisa waa fikrad aad iyo aad saliim u ah runta marka laga hadlana midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo kala go'idda ummadda Soomaaliyeed beesha isaaq bay ka go'daa iyaga ayaa midnimo keeni kara beelaha kale waqooyiga degan waxay diidi karaan gooni goosadka oo haddaba way diidaan dhulbaanta wuu diiday samarood ma ogola ciisuhu ma ogola haddii ay bedankeeda leeyahay warsangeli iyo ma ogola laakiin waxa weeye iyagu midnimo ma keeni kara midnimada haddayba rabaanba cidda laakiin midnimadu ka go'do ee oran karta muxuu ahaatay Soomaaliya dib baan ugu laabanay beesha isaaq weeyaan sidoo kale hadda cidda go'aanka go'itaanka ah wadata waa iyada sababta uu leeyahay go'itaankuna iyagu ka go'a taas weey sababta 30 sano cidda taagan waa go'ina waa iyaga dadka kala ma aha mar haddii ay sidaas tahay waxa weeye si toos in loola xaajoodo ayaa loo baahan yahay annaguna aynaan munaafaqayn dalka Soomaaliya 66 sano ayuu yahay xor sida la sheego dadka qaar aaminsan weli inaan gumaysiga ku jirno laakiin warqadiina la siiyay 1960kii waxa weeye 66 sano jir weeye maanta 66 sano dalka Soomaaliya waxa hogaaminayay daarood iyo hawiye wax soo hagaagayna ma jiraan oo waxay ka bedeleen Soomaaliya ma jiraan dadku kala tag buu qarka u saaray waxa weeye marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala maadaama uu yiri ummad intay iska bedesho sida ay tahay anigu waxba kama bedelo la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa bash Ilaahay ka dhahay yani anaga isbedelkiina naga rabay amuba yahayba maadaama 66 sano hagaagi weynay xukunka hawiyada daarad inay cid kale ku eegaan taas ma tahay oo isbedel Ilaahay naga doonaya anaguna meesha nala ka galay aan garan laana dadku waa badan yahay waxa la leeyahay 4.5 hadda lagu qaybsadaa 4 beelood oo siman baa la sheegay laakiin 4 beelood siman haddana laba baa weligeed dalkan hogaaminayso prime minister iyo muxuu madaxweyne noqonaysay aayad quraan iyo xadiidna ma aha soo marka isbedelka si uu u yimaado Ilaahay markaasi uu noo bedelo annagu marka hore aan nafteena wax ka bedelno suuqa anigu waxa arkaa fikradaas inay fikir sax tahay in ay tahay inaynu isbedelan nimaad waxaan qabaa anigoon gambari
oo waxaa weeye weliba hawiye daaroodna ay dhaleen boqorbuur madu isku mid baan oo isagana isaaqiya daarood baa iska dhalay anigana hawiye daarood waxaa weeye anigoo gambanayn oo weliba labada reere la eedaynayo kasoo kala jeeda waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliya usoo jeediyo in beesha isaaq la siiyo madaxweynaha soomaaliya lama rabo soo jeedinada madaxweynayaashii hore sameeyeen oo madaxweyne cabdullahi farmaajo sameeyey shariif sameeyey xasan sheekh sameeyey oo ah anaa kursiga kacaya waa qalbi wanaag waa arrin fiican laakiin aniga intaas wax ka dhumuc weyn in la sameeya qabaa maxaan qabaa 3 teeram oo isku xigta beesha isaaq in la siiyo madaxweynaha soomaaliya 3 teeram oo isku xigta 5 sano 5 sano 5 sano 15 sannadood in la yiraahdo dalka hogaamiyo 15 sannadoodna prime ministerka ay marna siiyaan daarood marna siiyaan hawiye marna siiyaan digil iyo mirifle si dalka loo wada yeeshatay oo weliba teeramka ugu horeeya daarood siiyaan teeramka ku xiga digil iyo mirifle siiyaan reerkayga loo daba mariyo hawiye la yiraahdo ka taangaha fadhiiso dhexad wax qastay intaa haddii la sameeyo nimankaas waxaan aaminsanahay wax weyn inaynu ka faa'iidi karno waxyaabaha loo dirayo oo madaxweynayaashooda shaqada u ah waxaa ka mid ah dalka in laga xoreeyo argagixisada iyagan ku eedaynaa waxaan dhanna iyagaa soo dirsaday mar hadday madaxweynihii dalka iyagu noqdaan waxaan ka rabnaa argagixisada inay cirib tiraan hadday soo direen iyo haddayna soo dirinba moore eeyaa leer ninkii galay hadduu maalo maal hadduu maalinna maal sababtoo xigmad moore ey loo gala meesha ma jirto hadday nimankaas argagixisada soo hubayn jireenna iyagaa lahaa haddayna soo hubayn jirinna waa cadow bay u arkaan oo labada goorba inay na dhaafiyaan ka rabnaa maxaa kaloon ka rabnaa dadku wixii ay ku dheer yihiin waa laga faa'iidaa ilaahi subxaana watacaala wuxuu yidhi fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuuna nimanku waxay nooga aqoon badan yihiin waxa kan dimuqraadiyadda la yidhahdo sababtoo doorasho qof iyo coda oo markasta ku hadaaqno iyagaa si practically ah dalkooda uga qabta ama deegaanadooda waxaa weeye marka waxaan doonaynaa argagixisada dalka inay ka xoreeyaan hogaamiyaashoodu ka bacdina doorasho qof iyo cod ah min raas kamboni ilaa lowya cadde ay ka qabtaan halkaas markay gaarsiiyaan beesha isaaq waxaan leenaha marka 3 teeramna ay qaataan habar jeclo habar awal iyo garxajiskoodu min 5 sano markay dalka xukumaan 15 sano isku xigta hawiye daarantay fariistaan ay xukumaanna waxaan leenahay doorasho qof iyo cod dalku markaan joogaa waxaa weeye marka santuuqyadaas aamina haddii mar kale madaxweyne koodaha soo baxo falilah alxamd hadduu soo bixi waayo mid daarooda yimaad oo mid hawiyaa yimaad ka yeeli mayno inay haddana mar kale inta dib u laabtaan dhaan 1960kii baan anagu halkan kusoo biirna taas way dhammaatay 15 sano dalka aad hogaaminaysaan ka go'ayaa ka yeeli mayno markaa iyaga laftirkooduna waa dad caqli leh oo mudakariin ah dabcan waxay la tahay intay 15 sano dalka hogaamiyaan inaysaan dib u laaban doonin arrinkan waxaan u soo jeediyey Soomaaliya qofkii fahamsan iyo qofkaan fahamsanaynba meeshii ugu xumayd bay ku socotaa maanta xaalad aysan weligeed wajihinna way wajahaysaa maxay tahay xaaladaas 1947 waxaa weeye carabta waxaa loo geeyey niman la galbinayo oo leeyahay reer koofiyar sanadka soo socda 2027 ayaa 80 sano ah 80 sano cadaabti carabi ku jirtay baan maanta waxaa weeye qarka u saar waxaana sabab u ah annaga iskhilaafkeena nimankaas carabigii ceelkii la baday waxaa weeye reer koofiyay soo hogaamiyeen weli jaanis baa jira haddaynu ku qancinno inay dalkaas 15 sannadood hogaamiyaan nimankaasu waxaa weeye reerkaa way ka soo harayaan haddii marka aynu diidno weli munaafaqayno mar kasta oo aan ka hadalno idaacadaha haddaynu naawiyo daarood midnimada ummadda soomaaliyeed waa lama taabtaan waa muqadas dalka lama kala jari karo haya wixii miiska soo saara haddana uji kala hadalnimaada war daacad hadday naga tahay midnimada ummadda soomaaliyeed badbaadada dalkani waxay ku jirtaa nimanka in 15 sannadood oo isku xigta dalkaas hogaamiye la yiraahdo iyaguna ay ka tanaasulaan ictiraafka iyo gooniisutaagga iyo korkoofiyar iyo balaayo dhan ay ka soo haraan haddaynu taa yeeli weyna marka weli si lex jeclaysano 80 sano cuqubadii carab haysatay baa lagu habsan doonta waxaana la yiri uu kaxaynayo ama qayb ka yahay nin casarkii agtaada yaqaan cishihiina codkaaga yaqaan lagama badbaado bal u fiirso casarkii agtaada yaqaan maxaa loola jeedaa
reer miyigu way israadiyaan raadka saanta qofka raadkiisa waxaa la yidhahdaa halka qofka maray waa hebel casarkii wuu ku garanayaa waa walaalka raadkaagu yaqaan cishihiina meel haddaad ka hadasho wuxuu le war codkaas waa codkii hebel kama dhuuman kartid baa loola jeedaa col walaalkaa ku jiro lagama badbaado weeyaan macnaha saxda ah nimankii reer koofiyar soomaali baa soo hogaaminaysa waana beesha isaaq saxara qori dheeraa la isaga tiraaye maanta sida keliya een isaga badbaadin karnana waa inaan reer sheekh isxaaq nidhaah war maxaad yuhuud ka doonteen maxaad doonayseen waxaad ogteen hoggaanka soomaaliya sow maaha hoggaankii soomaaliya 15 sannadood isku xigtaan siinay 5 u qaatay weliba sideedan adinku xataa isugu faanay waxaan diidanahay in dib dambe loo furo meeshii ahayd muxuu ahayd 1960 ku soo biirnay tusaale ahaan haddii maanta aynu siino garxajis 5 sano markuu jooga aan ka erino aynila annagii ku soo noqonnay de waxa weeye weli habar jeclay iyo nimankii kale habar wal waxa u furay ay tii raadiyaan laakiin waxaan rabaa in saddexduba ay isla maraan 1 2 iyo 3 inay inta qaataan oo qolo walba 5 sano dalkan hogaamiso hadhow tartan ay galaan ummadoodan ay ka mid noqdaan insha allahu tacaala boqor ismaaciil maxamuud buurmadow telefonkiisaan raadin doonaa waana la xiriiri doonaa arrinkaasna waxaa leeyahay qof kastoo soomaaliya danta dalka soomaaliyeed baa ku jirtay habar mudugray boqaalkana hala qaybiyo